guud ahaan dalka saddex sano ku dhowaad dagaal ayuu ku jiraa. dagaalkaasi guulo aada u waaweyn ayaa laga keenay. dhul 17 sano ay nimanka khawaarijta ay haysteen deganaayeen, dadkiisu waxay ayaga u sheegaan maahan wax kale aanay maqan, oo intaasoo sano 12 sano 17 sano ay sidaa dadku u hayeen waaye meesha la tegay. dhulka la xoreynayo dadka maxaan ku raadayay la xoreynayo waa dadkaas. يعني cibaarooyin aad iyo aad u badan oo yani dhibaatada inta ay la eg tahay dhibaatada ay bulshada u geysteen nimankaas habawsan yaa meesha ka soo baxay. dowladda Soomaaliya dowlad dimuqraadi ah, shacabkeedu ay raalli ka yihiin, inay raalli ka yihiin ay cadeeyeen oo ay dowladnimada lagu garab istaagay u dhinteen waay. shacabkanagu inuu dowladnimadeena raalli ka yahay, dhiigooday u hureen, naftooday u hureen. marka nimanka waa mahadsantahay nimanka khawaarijta ah haddii shalay aan ku khaldanay inay dalka yimaadaan oo si un dadka u sireen, maanta waa la bartay, waa la yaqaanaa, waa la fahmay. nama siri karaan, dalkana ma qabsan karaan, sifa ay ku qabsadaanna uma yaala dalka. marka waxaan rabaa kuwa meelaha magaalada Muqdisho aan ku noolnahay, mas madaxa laga dilaa la dhihi jiray shabaabku magaaladana target u ahayd inay qaribaan magaaladana. waad garanaysaan sida hadda tahay, alxamdulilah waxbaa weli u sii dhiman, waana isku dayi doonaan si joogto ah ay haddaba isugu dayaan. intay iska quusteen iskama bixin. dadka Muqdisho muxuu ahay war dadkaani aan u naxariisano, nabaday mudan yihiin, ha laga leexdo nama ayan dhihin. way kari waayeen bis. marka 24 saac maalin walba way gaatamayaan, way rabi lahaayeen meel yar oo ka soo dusaan inay helaan. waxaan rabnaa marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaa wanaagga ah iyo hor u socodnimada ah ee dalka uu ku tallaabsanayo oo dhan, runtii caawa gabdhaha kula jooga iska amaan uma lihi, laakiin qayb weyn ay ka yihiin. qayb aad iyo aad u weyn ayay ka yihiin. ilaahay idinkiisa waana rajaynana sida waxaan rabnaa marka gabdhaheenna kuwa raashinka qalalan ciidanka u diyaariya, 24 saac jikada ku jira, dubaya maxaan ku wadadaa muxuu ahaayey buskudka qalalan ee ciidanku qaataan, xirxiraya, isku daraya kalluunkii iyo buskudkii iyo timirtii iyo wixii dhan inta isku dara bac ku xira askarigu inuu muddo dhan oo ku noolaa kara ka soo saaray. waa mahadsan yihiin, ha sii kordhiyeen. gabdhaha Soomaaliyeedna meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay gabdhaha jikooyinka gacanta ku hayana ha lala garab galo, jikooyin cusubna ha la sameeyo. ciidanka iyo macuusleyda meel kastoo ay joogaan raashinkaasi wuu gaaraa. weliba way keedsadaan markay maalmaha dagaalka la qaadayo oo la dhaqaaqayo oo xeradii meeshii la deganaa ee dabku ka shidnaa laga dhaqaaqaya ayaa hore loo qaataa, waa lagu noolaadaa muddo. marka aad iyo aad u fiican yahay. way mahadsan yihiin walaalaheen gabdhaha Soomaaliyeed ee walaalaha ee u istaagay arrintaas meel kastoo ay joogaan. waxaan leeyahay jikooyinka noocaas ha la badiyo. gabdhaha Soomaaliyeedna meel kastoo joogaan midii firaaqi awood u leh jikada ha timaada ka shaqeyso, tii kalena qaaraanka ha dhiibto. howlahaasi waxay ku qabsoomayaan xoola inaan xirno. wax badan oo qarash aad iyo aad u badan oo aan la awoodinna ma aha. intii qof dhibtana 2 iyo 3 iyo 4 ma dhibto. loor bur ah marka qof soo gado waa laga yaabaa inay xoogaa yar u dareemo, laakiin loorka burka marka 10 qofood ay soo gado maxaa qofku muxuu ka dareemayaa? marka gabdhaha waxaan leeyahay taas waa intaas. waxaan rabaa kalsooni badan qaba. wiilashiinii walaalihiinii ayaa jidku u taagan nimankaasi oo dagaal kula jira, oo adinkuna aad garab taagantihiin, annaguna aan garab taagannahay.
gabdhaha Soomaaliyeed mar kale waxaan ilaahay hambalyo aad iyo aad waxaan noo ballan ah dagaalka qawaarijta inaan u midowno oo aan dalka ka kacsano. waxaa kaloo intaa noo dheer ummadaan nahay, ummadaha adduunkan ka mid nahay, kuwa ugu macno badanaan nahay. dalkeenu mowqica ama meesha uu ku yaalahay meel adduunyada aad iyo aad muhiim uga ah waaye. khayraad badanaan leenahay, bad iyo berri iyo bar iyo beer, intaba khayraadana inta dhulka korkiisa ka muuqata ee aan arki karno khayraadka ayaan xisaab lahayn. inta dhulka ka hoos ku jirta iyo badaha ka hoos ku jirta iyo iska daa nicmada ilaahay uuna siiyey aaday u badan tahay. caalamku dowlad ku noqotay doorasho dadban ma yaqaano. 25 sanana doorasho dadbanaan joognaa, ma sii joogi karno, macquul nala aqbali maayo. caalamku nama aqbalayo inaan sidaas dowlad ku ahaano oo nagula macaamilo, nama aqbalayo. ma naqaano waxa ay yihiin iyo waxay ka shaqeeyaanana laleeyahay. waa naloo dulqaatay annagoo sidaas wax badan nala aqbalay. waa soo soconnaa, waa keenaynaa, dastuurkeennay ku qoran tahay, saan waaye, saan u soo rahaynay. maanta meelaan soo gaarnay nalagu shardiyey waxyaaba qaarkood aan u baahnayn si naloogu garab istaago inaan ballan inaan qaadno oon dhahno dowlad la yaqaano, doorasho qof iyo codab ku salaysan, xisbiya leh. يعني waxaa sababta dowladda structurekaas loogu soo qaabkaas loogu soo waa maxay? dowladdu predictable, yani saadaal in la saadaali karo waxa soo socdo, xisbiga guuleysanayo, waxa kulli waa la saadaali karaa. maanta lama saadaali karo, waana ogtihiin inaan la saadaali karin. maalin walba qof aan nafilaynaa yaa bud dhexda kasoo yira kasoo baxay. maalin walba nimaan la ogeyn, laakiin xisbi waa la yaqaanaa, mabaadidiisu waa caddahay, waxa ka suuraaba iyo waxaan ka suuraaba inaan la garanayaa. xisbigaani waxa uu yeeli karo iyo waxaan uu yeeli karin waa la ogyahay. laakiin qof socda keligiis lama yaqaano waxa uu yeeli doono iyo sida u dhaqmi doono iyo meesha dalkan iyo mustaqbalka ummaddan meel uu kala dhici doono lama yaqaan. si la isula jira dadka waxa laga dhexaysiyaa leeyahay. waa sababta aan u keennay fikirkii ahay dalku 2 xisbi ha yeesho, 3 laga dhigo. haddana weli waa fiicannahay. markaan aniga xisbi leeyahay, cod aan u baahanahay, waxaan ku khasbanahay kan Kismaayo jooga iyo kan Baydhabo jooga iyo kan Garowe jooga iyo kan Dhuusamareeb jooga kulli inaan raadsado oo ilaa warkaalay xisbigaana leh mabaadi'da saasana u dhaqmayna, saana yeelina, aan isla qaadano fikirkan, aan isla qaadano intaasna oo sunnimado oo isla qaadano. waa sida kaliya aan ku guuleysan karo xisbigayga oo cod fara badan ku heli karo. haddii kale haddaan muxuu ahay qolo yaroo reer qurac la yiraaho meel hebel degan haddaan noqdo reer qurac waxa ma samayn karaan, dowladda ma dhisi karaan, waxna ma waxay karaan. marka waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed xisbiyada wax ka dhista, xisbiyada gala, xisbiyada ka shaqaysiya. gabdhaha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan jiriya, gabarnimo isu kaashada, hore u socdo, reer hebelnimaha isu kaashanina. waa ku liibaanaysaa. siyaasadda waxaa la yidhaah tira badnaan, magag maaha, tira badnaan maaha, abaabulnaan waaye. dadku hadba siday u abaabulan yihiin, koox yar oo abaabulan waxay mar walba ka macno badan tahay, kana cod dheer tahay dad aad u fara badan oon abaabulnayn. kuwa abaabulan waa maxay? waxbaa ka dhexeeya, waxbay wada leeyihiin, waxbay isla qaateen oo ku abaabulan yihiin. kuwa aan abaabulnayna waxba kama dhexeeyaan, waxba ma laha. siyaasadda xisbiyada ku salaysan iyo doorashada qof iyo cod ku salaysan aan taageerno. waa mahadsantihiin. dalka waxaa noo ballan ah 2 shay: shabaab inaan dalka ka xoreyno iyo doorasho qof iyo cod. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. guul iyo khayr aan idin rajaynaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.